iyo sidoo kaleba dhammaan maamulka kala duwan iyo soo qabanqaabayaashii xafladan in shacab weynaha magaalada Gobyarey dhalinyarta qaaliga ah ee quruxda badan leh ee ragga iyo dumarkaba iskugu jira oo runtii maanta wacdara ka muujiyay magaalada aynu joogno ee quruxda badan leh magaaladii xadaaradda magaaladii Gobyarey aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa runtii waa waxaan filayay oo ka filaynay dhalinyarta iyo maamulka magaaladeenan waxaan rajaynayaa run ahaantii magaaladeenan inuu isbedel ballaaran uu ka socdo si guud badalka sida uu uga socdo mid la mid ah inuu magaalada uu ka socdo baan maxaan dhahdayay filayaa oo runtii in odayaasheeni iyo sheekhyadeenniba ka markhaati kacay iyo idinkuba isbedelka maanta jira maanta ani laygama baahna inaan sheego idinka afkiina ka sheegaya magaalada maxaan dhahday Gobyarey wax qabadkeega iyo waxa loo qabtay iyo isbedelkeena idinkaaba ka warhayaba sidaa darteed si uu inoogu sii socdo horumarka barwaaqo midnimada barwaaqo wadajirka barwaaqo iyo inay Itoobiya noqoto tusaalaha ugu horeeya ee Afrika inay noqoto wadanka ugu horeeya ee Afrika uu yahay in hadafka xisbigeena barwaaqo oo uu cad yahay in mustaqbalkiisu iyo hadafkiisu waxay caddahay inaad garateen maskaxdiina dheer iyo aqligiina fiican aad ku garateen sida aad ugu soo baxdeen inaad ku doorataan insha Allah baan rajaynayaa wacdaraha maanta aad dhigteenna mid ka fiican oo ka xadaarad badan maalinka codbixinta inaad samayn doontaan oo aydaan kala hari doonin kaarna inaga hari doonin oo dhammaanba cidda gacanta ku haysa kaarka ay u taaban doonaan calaamada ballankeenu waa calaamada qamadinka ujeedada calaamada qamadiga ama xirmada qamadiga ah oo ah waxyaabaha ugu waaweyn ee shanta soo socota ee barwaaqo ay maxaan dhahday uu yahay qorshaheegu oo ah inaynu dhulkeena wax ka soo saarano inaynu nafteena wax u soo saarano inaynu dalalka jaarkana wax u dhoofino ayaa ah inaynu beerano beeralayna inagu inaga beeralayna inagu ogaada marka waxaad garan kartaa inuu xisbigii barwaaqo wixii aynu qabanaynay ka Gobyarey ahaan ee ahaa inaynu dhulkeena falano inuu dib ugu soo noqday sidaa darteed aad iyo aad baad u mahadsantihiin cadceed baad taagantihiin isku soo bixiina ballanteenu waa bal gacanta ku muujiya ballanteenu waa dhinaca maarke ballanteenu waa aad iyo aad baad u mahadsantihiin xildhibaanadii naga horeeyay xildhibaan Sumeer baa ka dhawaajiyay wax qabadka idin qabteen anaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa intaa iyo in ka badan inaad idin qabanno shaweynta magaalada Gobyar dhammaantiin aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kollay Gobyar maanta midnimadeeda waa la arkaa oo saad noogu soo baxdeen ee noo garab joogsateen ee kalsoonida noo siiseen way idinka muuqataa kollay hadalka idinku badin maayo wax qabadka xisbiga barwaaqo waa laga wada daragsan yahay qofna daah kama saarna si uu wax qabadka inoogu xoojiyo uu midnimada iyo horumarka inoogu horseedo mar labaad xisbiga BB hasiina codkeena maxaad leediin xisbiga BB maxaad tiraadeen si aan u barwaaqaysano sanadada dambe 5 sano odhan maayo ilaa in ka badan ha joogo ha guulaysan xisbiga BB mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa bulshaweynta magaalada Gobyar dhammaanta horumarkiina waad aragtaan xildhibaanadii naga horeeyay xildhibaan Sumeer baa ka dhawaajiyay wax qabadka idin qabteen anaguna insha Allah waxaan rajaynaynaa intaa iyo in ka badan inaad idin qabanno si aad maanta uga muujisaan midnimada ee noogu soo baxdeen noo garab joogsateen maanta tirada leedihiin waan aragnaa iyo Gobyar macnaheeda maanta idinkaana tusay sida aad noo tusteen waxaan idinka codsanaynaa inaad adkiina ugu deeqdaan oo ugu muujisaan maalinka ay doorashada taagan tahay xisbiga barwaaqo maxaa tiraadeen kollay qorax baad noo taagantihiin hadalka idinku dheerayn maayo aad baad u mahadsantihiin